dhimashada ayaa gaadhay 9 qof gudaha dalka Afghanistan ee dhaca koonfurta qaaradda Aasiya. mashaqadan ayaa ka dhalatay kadib laba qarax oo ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga dalka Afghanistan. dad gaadhaya 13 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxyadan oo ay u dhaxeeyeen daqiiqado kooban sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadku. qaraxyadu waxay ka dhaceen magaalada Masar Sharif ee gobolka Balkh waqooyiga dalka Afghanistan. mas'uuliyiinta magaalada ayaa warbaahinta u sheegay in dadka dhintay ay u socdeen guryahooda si ay u soo afuraan marka qaraxu u dhacayay. warbaahinta deegaanka ayaa ku warantay in dadka la bartilmaameedsaday ay ahaayeen dad Shiico ah oo lagu beegsaday caqiidadooda. kooxda Daesh ayaa goor dambe sheegatay mas'uuliyadda weeraradaas. waxay warkan ku baahiyeen barta ay ku leeyihiin Telegram. Afghanistan waxaa sii badanayay muddooyinkii dhawaa weerarada lala beegsanayo kooxaha Shiicada ee laga tiro badan yahay gudaha dalka Afghanistan. waxaa iyaguna jiray weeraro ka dhan ah wadaadada suufiyada tan iyo intii ay Taliban qabatay talada Afghanistan. waxa shacabku ay dareemayeen xasilooni dhanka amniga ah marka laga tago weerarada imika imanaya ee ka dhanka ah kooxaha gaarka ah. Khadar Haybasaab TV. qoonmaal islaam io fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam io fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber